Khalid bin Waliid radiyallahu canhu ayaa wuxuu u jihaystay dhanka Ciraaq si uu cashar ugu soo dhigo boqortooyada Faris oo dhagar iyo shirqool u maleegaysay muslimiinta. Wuxuu u diray fariin u qoran sidaan, wax uuna yidhi: ka timid Khalid bin Waliid, kuna socota boqorada Faris. Waxay mahad u sugnaatay Allaha maamulkiina kala furfuray, daciifiyana shirqoolkiina, kala geeyeyna go'aankiina. Haddii uusan sidaas idinku samayn lahaynna, adinka ayay shar idinku noqon lahayd. Arrinkeena Islaamka ah soo gala, adinka iyo waddankiinaba waa idinka tegaynaa. Haddii aydan sidaas samaynna, adinku khasban ayaa samayn doontaan marka la idinka adkaado. Ama islaama waa nabadgelaysaane, ama jizyada bixiya adinkoo dulaysan. Haddii kale waxaa idinla imaan doonaa qoom geerida u jecel sida adinkaba u jeceshihiin nolosha. Nabadgelyadana waxaa leh qofka hanuuna. Muslimiinta Andalus ayaa ka dalbaday gurmad amiirka muslimiinta ahaana hogaamiyaha dowladda muraabidiinta Yuusuf bin Tashfiin. Yuusuf iyo ciidankiisana waxay soo aadeen dhankii Andalus si ay garab u siiyaan walaalahood. Arrinkaasna waxaa maqlay boqorka Ruum Alfonso lixaad. Isagana wuxuu gurmad weydiistay Yurubta kale. Wuxuu keensaday ciidan labalaab ku ah ciidanka muslimiinta, hub noocii ugu dambeeyeyna wato. Alfonso isagoo kiwirsan ayuu dhahay: ciidankan ayaan kula dagaalamayaa jin iyo insiba iyo malaa'igta samada. Ciidankan ayaan kula dagaalamayaa Muxammad iyo asxaabtiisaba. Amiirka muslimiinta Yuusuf bin Tashfiin isagana wuxuu ugu jawaabay sidaan: ka timid amiirka muslimiinta Yuusuf bin Tashfiin, kuna socoto Alfonso lixaad. Nabadgelyo korkiisa Allaha yeelo qofka hanuunka raaco. Waxaa ina soo gaartay inay ku ducaysatay inaa hesho dooman si aan ugu soo gudubto annaga, balse annaga ayaaba kuu soo gudubnay badda. Waxaadna ogaan doontaa ducadaada cirib xumadeeda. Waxaana kuu soo bandhigayaa islaamnimo ama jisyo ama dagaal. 3 maalin kadibna kuma dibdhigayo. Halkaasna waxaa ku dhex maray dagaal lagu magacaabo Zallaaqa oo ay muslimiinta guulaysteen markii ugu horreysay 10 sano kadib. Boqortooyada Britain ayaa samaysay isku dayo badan iyagoo rabay Cabdilxamiidka labaad ee Cusmaaniyiinta inay ku qanciyaan inuu soo saaro go'aan Yuhuudda looga fasaxayo Falastiin iyagoo bixinayo jisyo, sida uu sameeyey nin lagu magacaabo Theodore Herzl. Laakiin Cabdilxamiid marna uma ogolaan oo go'aankiisa ayuu ku adkaystay. Wuxuu yidhi uga naseexeeya Mr. Herzl tallaabo noocan ah inuusan mar dambe qaadin. Anigu ma awoodo inaan wareejiyo wax yar oo ka mid ah dhulka. Ma ahan waxaan leeyahay aniga, ee waa waxay muslimiinta dhan wada leeyihiin. Muslimiinta ayaa u jihaaday oo dhiigoodana u huray. Yuhuuddana xoolahooda iska haystaan. Haddii la burburiyo dowladdan khilaafada ah, iyagaa Filistiin lacag la'aan ku qaadan doono. Balse aniga oo nool, jirkayga oo sakiin lagu jarjaro ayaa iiga fudud inaan arko Falastiin oo laga jarayo dowladda Islaamka. Taasna ma ahan mid dhacayso. Anigana ma awoodi karo inaan ogolaado in la jarjaro jirkeena inagoo nool.